الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مقعي والأستاذ عبد القادر محمد عثمان وكما عمير عبد البقر، وحان كمل هاي معلمينتا جامعة المدينة انترناشونال يونيفرسيتي كنت الله ودنك ماليشيا وقال أهان شاء ألم. waxaan ka dhigaa jaamacadda maadooyinka la xiriira marketingka iyo managementga. faculty guud ahaan magaceeda isna hore u sheegay waa Faculty of Finance and Administrative Sciences. Soomaaliya lagu yiraahdo kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha. luqada carabina waxaa lagu yiraahdaa kuliyat al-ulum al-maaliyya wal-idaariyya. maadooyinka aan ka dhigo jaamacadda waa maadooyinka sida mathalan business communicationka, entrepreneurship, marketing, theory and practice oo kale, maadada la yiraahdo human resource management, organizational behavior, iyo maadada la yiraahdo management theory and practice. jaamacadda marka maanta waxaa dhacay seminar ay iska kaashadeen ururka guud ee ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia iyo jaamacadda Al-Madina International University. maanta inoo qabsamay alxamdulillah waxaa ka soo qayb galay arday aad iyo fara badan oo isugu jira arday Soomaaliyeed iyo arday ajaanib ah intaba. xarunta jaamacadda Shah Alam ayaana lagu qabtay. waxaa ilaahay mahadii ka soo qayb galay macallimiin fara badan iyo dakaatiro ugu horeeyo Dr. Abdulsalaam Hussein Malla oo macallin wax igala dhiga ah jaamacadda Al-Madina International University oo ku qornaa topic personal development ah. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay Dr. Nashad oo asiga inooga yimi jaamacadda UIA ama jaamacadda Islaamka ee Malaysia, iyo aniga oo anna ka socday jaamacadda Al-Madina International University qaybteeda maamulka iyo dhaqaalaha. waxaa sidoo kale nagala soo qayb galay Dr. Kamal oo inooga yimi Australia. waxaa ka soo qayb galay Dr. Mubarak Maxamed Mansuur oo asigana haysta qaybta ardayda ama Dean of Student Affairs. qaybta faculty-geena dabcan ka ah diin ku xigeen maamulka dhaqaalaha. wuxuu ahaa xaqiiqdii mid aad iyo aad very successful u ah. ardaydu ay khibrado fara badan ay ka faa'iideen, maaragtay shahaadooyin nalagu guddoonsiiyey. waxaa usid mudan in uu nagala soo qayb galay rectorkii dhammaa ee jaamacadda haystay Professor Dr. Maxamed bin Khalifa At-Tamimi. wuxuu aad iyo aad wada guddoonsiiyey shahaadooyinkii hal ilaa arday gaaraysa 50 ilaa iyo 50 iyo dhowr. si ilaahay mahadiisa ardayda aad iyo xaqiiqda ugu farxeen waxyaalaha uu ballan qaaday. waxaa ka mid ah in haddii iskaashiga ururka ardayda guud ee ardayda Soomaaliyeed iyo jaamacadda in uu ballan qaaday inay soo dhaweynayaan ururka iyo Soomaalida guud ahaan ay iska kaashan doonaan seminaar fara badan iyo workshops fara badan oo maaragtay uu rajeynayo in ay ardada skillskooda iyo maaragtay dhinaca academiskooda labadaba ay wax weyn ka tari doonaan biidin Allah tacaala. waxaa xaqiiqdii aad iyo aad ula yaabay, xaqiiqdii aad iyo aad ugu farxay iyo madaxda guud ahaan ajaanibta ee shirka nagala soo qayb gashay ardadii oo isku duuban oo magaca guud ardada magaca Soomaaliyeed oo dhan ah, iyo ardadii iyo dakaatiradii aqoon-yahanadii Soomaaliyeed ee joogay waddanka Malaysia. sida isku duubnida ah ay awood u leeyihiin inay wax wada qabsadaan, inay isu yimaadaan, inay wax isu faa'iideeyaan, inay maaragtay ixtiraamaan. waana fikrad dabcan ka duwan midna uu caalamka kale laga faafiyo oo maaragtay dad kala qaybsanayaan wax la mid ah. image-kii marka ardayda guud ahaaneed iyo aqoon-yahanada iyo xitaa ka community ahaan ummadda Soomaaliyeed waddankan ku dhaqan xaqiiqdii wuxuu noqday mid aad iyo aad loogu farxo oo aad iyo aad maaragtay image fiican alla ilahay noolaga qaato. xaqiiqdii aad iyo aad ugu farxeen. waxaan rajeynayaa biidin Allah tacaala in seminaarada iyo kuwa la mid ah aan ka qaban doono maxaan idhaahdaa jaamacadaha guud ahaan ee Soomaalida ay dhigato, sida hadda ururka aan maqlayo qorshihiisu uu yahay. dakaatirada iyo maaragtay in ay jaamacadaha kala duwan ay booqan doonaan. haddii la yiraahdo kan ugu soo horeeya dabcan oo aniga igu qoreen, waxaan rajeynayaa in uu ka dhici doono UM sida la igu yiri. laakiin insha Allah tacaala waxa ugu muhiimsan waxaa waaye in arrintaa maanta inoo dhacday, guul inoogu dhacday, ka wada faa'iidnay oo ardayda si khaasatan uga faa'iideen, shahaadooyin ku qaateen, madaxdii jaamacadda oo aad iyo aad ugu farxsan ay nagala soo qayb gashay, si guul ahna oo inoogu dhamaaday. waxaa muhiim ah in seminaarada noocan oo kale ah
oo la soo keenay ardayda guud ahaan waddanka meel kasta ay joogaan ma aragtay ay isku dhexgalayaan ay wax u kala faa'iidayaan ay ku dareemeen inay dhammaan wada arday yihiin dad waxooda baranay yihiin in ay alla ilaah ummadii guud ma aragtay caafimaadkeeda ka ummad ahaan ay wax weyn inagu kordhinaysa xaqiiqdii fikradda iyo sumcadda ummaddeena Soomaaliyeed laga haysanayna dabcan wax weyn ay ka tarayso iyo xitaa soo dhawaashaha dhinaca maamulka jaamacadda iyo ardayda dhiganaysay jaamacaddan oo kale maxay yeelay jaamacaddan Soomaalida dhigata waxaa lagu qiyaasaa 100 ilaa 150 marka ummadda fircoon seminaarada saa u qabanqaabanaysa sida isugu duuban kartida u leh inay macallimiin ka keenaan gobolka kale sida insha Allah kale iyo macallimiinta jaamacadda joogtay aniga iyo Dr. Cabdisalaam oo kale waa wax aad u qiimo badan waana ku faraxsanahay dhammaan guud ahaan waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan sii wadi doono dhibaatooyin fara badan iyo dhinaca image-ka aan waxaan rajaynaynaa inay xalin doonto ardadana skills-kooda ay si fiican u dhisi doonto haddii Ilaahay yiraahdo biidhnillaahi taala maxaa yeelay qofku ma ku barto tacliinka meel oo kaliya fasalada maaragtay workshops-ka seminaarada debate competitions-ka waxa oo dhan ardaygu wax weyn skills fara badan ayay siiyaan waxaan rajaynayaa insha Allah taala kuwa ay kulmada inay dhici doonaan waxa mahad gaar iska leh ardadii u taagnayd muddada dheer ee ka socotay warka ardada Soomaaliyeed waxa mudnaan gaar iska leh saxaafadiina la joogtay uu ka mid ahaa brother Hamza Sharif iyo groupkiisii waxa ma aragtay xusid mudan in ma aragtay xaqiiqdu ahaa dadaal aad iyo aad loo wada habeeyay oo la isu wada yimi oo la isu kaashaday oo team spirit uu ka dhacay waxaan rajaynayaa inuu isku ekaan doonin waana mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi